maamulka ururka samafalka iyo taakulaynta dadka tabaalaysan ee Tawfiiq ayaa waxa uu deeq lacag gaarsiiyay qoystan yar ah oo ku nool degmada Dila ee gobolka Awdal. Qoyskani oo kamid ah qoysaska danyarka ee ku nool degmada Dila isla markaana 3 caruur ay ka indhalaayihiin ayaa waxa deeq lacag maanta gaarsiiyay maamo Basra Jirdashiil oo ah gudoomiyaha ururka samafalka ee Tawfiiq. deeqdani lacagta oo laga soo ururiyay dadka muxsiniinta ee ku kala nool daafaha dunida. deeqdani ayaa waxa ka gudoontay hooyada dhashay 3daasi caruurta ee indhaha naafada ka ah. maama Basra Jirdashiil oo ugu horeyntii xaggaasi ka hadashay ayaa u mahad celisay cid kasta oo ka qayb qaadatay soo bixinta lacagtani ayaa waxay sheegtay waxaan la joognaa walaashay oo ku nool magaalada Dila haysato 3 caruura ma sha Allah laba wiil iyo gabadh. caruurtaasi subhanallah ilaahay amarkiisiba ay ku indhalaayiin waa shaqulada ilaahay shaqulay inagu aan shaqo ku leenahay maaha. ilaahay baa sidoo doono adoonkiisa u abuurta ku doona indha ku dhaliya ku doonana indha la'aan ku dhaliya ku doonana isagoo indha ku dhaliya haddana ka qaada waa nicmooyinka rabbi ma taqaan bixiyo. marka waxaan leeyahay subhanallah horaa malaha de loo arkay meel kullayba laga arkayba anigu maan ogeyn laakiin hadda waxa loo soo diray $670 marka lacagtaasaan rabnaa inaan hooyadood oo indha qabta aan ku wareejino. ilaahayna waxaan uga baryaynaa marka hore in ilaaha weyne waaxida awoodiisu wuxuu doono ku sameeyay ubadka yaryar indhahoodii u soo celiyo caafimaad sareecana siiyaan ilaahay ka baryaynaa. hadduu sidaa ugu tala galayna ummadda muslimka ee Soomaaliyeed ee meel walba joogta uu dhirbaxo ugu soo dhufto oo wixii ay u baahan yihiin laga kafaalo qaado. waliba waxa u dheer sida la ii sheegay inay agoon yihiin oo aabahood bari dhaweyd u dhintay. marka lacagtan waxay ka timiday hablo muxsiniina oo ku nool wadanka Denmark gaar ahaan magaalada Copenhagen ururkooda magaalada Oslo yida ururkooda ayay ka timid oo cawal la yida ururka in cawal la yida baan jeclay haddaan qaldamaha la cafiyo. marka waxaan walaashay ku wareejinayaa 1670 haddii ilaahay yiraahdo ilaahayna dhamashi falayada ha uga dhigo kuwa soo dirayna ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro oo dambigoodi iyo dambigii waalidkood ba Allah ku dhaafo. miisaanka xasanaadka maalinta la qatan yahay la qaawan yahay ilaahay ha ugu daro ma taqaan caafimaad sareecana Allah ku siiyo arsaaqada Allah ugu biiriyo. dhulka ay joogaan ee ilaahay gaalada ku abuuray dhulka ilaahay ba iska leh dadkana ilaahay baa leh laakiin haddana qolobo meel buu ku abuuray. marka wadamada gaalada ay joogaan ilaahay sharkooda ha kaga xafido. ilaahay saasaan u weydiinaynaa adduunyada nimcaha ku noolaadaan aakhiradana janno. inta kale ee Soomaaliyeed ee magacaya ee afkaan ku hadlayna garanaysa ama ururkayga Tawfiiq taqaana iyo inta aan aqoonay imkana baran doontaba waxaan si naxariis leh ugu codsanaynaa caruurtaasi kafaalaqaad bay u baahan yihiin $1600 waxa laga yaabaa inay dhowr bilood ku noolaadaan ama sanad laakiin wax ilaahay dartii ku kafaala qaada oo bishii wax joogta u soo dira meeshan ay degan yihiin wali ma naantooyin laakiin meel ay ku noolaadaan kafaalaqaad bishii adoontaasi de ma 3 ciyaal ay hayn ee indhaha la mise waxaynu oran doonaa u shaqo tag iyagoo 3diiba indhalaayiin oo ay waxba qabsan karaynin. lil'asafna de wadankan aan joogno wali iskuul dadka indhaha la geeyaa kama jiro. marka waxaan oran lahaa in madrasad sida ugu dhaqsaha badan loo geeyo oo ay dhagaha quraanka ka soo bartaan baan iyadana ku dardaarayna insha Allah rahmaan oo diintooda bartaan dad badan oo indhala oo laakiin adduunka wax ka qabsada jira. halkan sadii adduunkii ma aha waxa kaliya qaban karaanay barina ku shaqaysan karaanay xirfad ku heli karaan waa quraanka oo de uguna wanaagsan khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama bala yiri. marka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ummadiisa u soo dhirbaaxo waxaan leeyahay lacagtii gudoon hablahana u mahad celi. dhanka kalena hooyada dhashay caruurtaasi oo ka gudoontay isla markaana u mahad celisay dadkii soo bixiyay lacagtan iyo ururka samafalka ee Tawfiiq ayaa waxay sheegtay walaalahayga muslimiinta ee deeqdana soo diray waxaan ka ilaahay halkii ka soo saareen wax khayr la ilaahay inuu soo geliyo ayaan ilaahay u baryaynaa insha Allah khayr waan ka gudoonay ilaahay yagana wax khayr leh anigana ilaahay hayga dulqaado rabbi weyne ilaahay intaasaan weydiisanana alxamdulillah rabbil caalamiin.